ciidamada badda ee ku sugan xeebaha waddanka Soomaaliya ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen markab ay leeyihiin ciidamada badda ee waddanka Isbaan ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladii ugu dambeeyay ee burcadbadeeda waddanka Soomaaliya iyo waliba howlgaladii ay ciidamadaas u qabteen. Ataliyaha ciidamada ee hoggaanka iminka ka ah ciidamada ilaalada xeebaha waddanka Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa waxa uu ka warbixiyay dhawaan howlgallo ay sameeyeen ciidamada badda ilaaliya xeebaha waddanka Soomaaliya in order to contain the problem at sea until in mid kamid ah maraakiibta waqooyiga Korea oo xamuul siday ay ka badbaadiyeen kooxo burcadbadeeda. waxa sidoo kale uu sheegay inay xafiis ka furteen waddanka Jamhuuriyadda Djibouti kaasoo noqon doona xafiiska la socodka dhaqdhaqaaqa burcadbadeeda. kulankani ayaa waxa sidoo kale ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay xalka looga baahan yahay kooxaha burcadbadeeda deegaanada ay inta badan ka yimaadaan iyagoo ugu baaqay in dadka ku nool qaybaha waddanka Soomaaliya ee saldhigga u ah burcadbadeeda ay had iyo jeer iska fogeeyaan amaba ay ka fogaadaan. ma ahan markii ugu horeysay oo shir jaraa'id oo kan oo kale ay qabtaan ciidamada midowga Yurub ee ilaaliya xeebaha waddanka Soomaaliya. Gaal Cabdirashiid Barre, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.